بسم الله ما شاء الله أصحابتي ذا قالي ما أنتو حنو وذا لبا قابوت أد أجرجرين كرتيد قراها وآد وقروح بدن إندها نورون الحمد لله إلا وذا نسي نوسا إذا إنت أنهي سنين نسي مركو غوري سودو هذا نوقع عصب تاعي فضلا سبسكرايب نوصار جنباليل كان فرصي ذا فيديو والبعصب وكوغو سودعو وآد أنخطيت سبسكرايبر صحة بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada kuwiin hajsoom waan idiin salaamay meel walba waa dunida ka joogtaan iyo xil walba oo idiin tahay waxaan idiin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina asxaabta cusub kusoo dhawaada qalbi furan asxaabteyda hore u joogtana sidoo kaleeto kusoo dhawaada qalbi furan dhammaantiina waa mahadsantiin inaa idin dhoone marnaba kama daalayi kamana caajisayi man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah asxaabteyda qaaliga ah sida aad u jeediin maasha allah tabaaraka allah waxaa noo wadaa laba qaab aad u jarjaran kartid qaraha oo si fudud aad u jarjaran kartid oo haddana aad u qurux badan oo qofkii la hordhigabo ka helayo xitaa adigaba ahaatideeya naftaada xitaa way ka helaya ma jirto insha allah biidnillaahi kariim hadeertaan waxaa guda gali doonaa sida qaraheena aan u jarjaran lahayn qaro hal xaba ah ayaan soo kala gooyay kadibna gobol ayaan kasoo qaatay way la arkaysiin kharaab wuu weynaay saas darteed meesha ma soo saari karin waa kana hadda waxaa haystaa midi weyn adiga daa midi weyn haysan midi yar laakiin midida inay af yeelataa fiican sida ay ku dhibin markaa jarjaraysid insha allah biidnillah waa kana hadda dhexda ayaa ku kala dhuftay gobol ayaan meel dhiganeynaa haddana mar kale ayaan dhexda ku kala dhufanayaa sidaa ujeediin saan ayuu kusoo baxay kaali arag soomaaliya oo isoo xasuusiya ku dhahay qarahaneeta gaduud macaan maasha allah tabaaraka allah alxamdulilah ilaahay hanoo daaweeyo inta haysanina ilaahay subxaana watacaala ha siiyo waa ujeediin hadeertaaneeti qarihii dhexda ayaan kusoo kala dhufanayaa saas ayaa usoo kala jaray waa ujeediin jabkan haddana meelaa dhiganaa haddana dhexdan kusii kala dhufanaa maanta waa la jarjaraa leen ujeediin adiga sidaa rabtid oo ku xiran tahay laakiin hadda aniga sidaan u jarjaraya waa si fudud oo aadna u qurux badan qaraha waxaa waaye jarjaritaankiisa ma dhib badno laakiin qub markuu leeyahay xoogaa qubka ayaa adag ma fahamteen waa kana hadda waa kan jabkii koowaad ayaan soo diyaarsanaynaa sidaa ujeediin midna waxaan ka dhigayaa design waaweyn midna xoogaa waa yaryareynayaa saasaa ku kala fahmaysiin hadduu ilaahay idmo waa ujeediin hoos ayaan kasoo galayaa midida ayaa hoos kasoo gelinayaa kana raali naqda kaamira zaa-id muugu aadisno hadda leeba arka wayaaba markaa cod ka saarayo hoos ayaa midida kasoo geliya hadda waxaa sameynaa waa jarjar waya waa ujeediin hal mar le hoos aan kasoo geliyay saasaa u jarjaraa kan waa weyweynayay waa ujeediin aan malin asiga dhan waxaan ka dhigay waa 4 gobol marka hadda maxaa sameynaynaa waa isdhaafinaynaa qaraha quruxdiisa dhan hoosna markaa aad ka jaraysid si fiican isaga jar hadda aniga xoogaa wuu ku dhagan yahay waa jaray hadda waa kana hadda saan midig bidix saasaa usoo kala qaadee waa ujeediinaa u maleynayaa hoos oo haddana wax yar ku dhagan yahay waa kaas midkaan ayaa ka toosinayaa maasha allah asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada dhammaantiina fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad videogan sheer garaysiin sida dad badan ay uga faa'iideystaan mar walbana waa ku mahadsantihiin dhiirigelintiina sheer garayntiina waa kana qareeni sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxay hadda ayaan idin tusinayaa waxaan saarayaa alwaaxaas sidaa u aragtiin sida uu noqday ugu dambeynti waa kaay maasha allah tabaaraka allah soo maahan waana fudud yahay waqti kaama qaadanayo kaali iska arag dhab leesoo siisa hore lee ka cun waayo ku dheh yaa haddana midkii kala soo jaraya waa ujeediin sidoo kaleeto hoos lee kasoo geliyey waa kaas si fiican inaa argos midida waa idinku aadiye sasa usoo jaraa markaasoo dhameeyo asiga dhan hilibka waa noo soo foqsama markaan waa ujeediin zagzagta waa yareeyey midkii hore to dhowr xab lee ka dhigay soomaa kan laakiin dhowr camalaa ka dhigay oo badan waa kana haddana sidii lee yeelaa tabti inta usoo jeedinaa haddana midka kale inta usoo jeedinaa midka dhexda ayaa xoogaa hoos ku dhagnaay wuu i wareeriyey ma fahamteen laakiin dhib male
waa soo toosinayaa. Markaa wax sameynaysidna wuxuu u baahan yahay dulqaad iyo deganaan labadaba. marka haddaa si fiican wax deganaan u sameysid adigana waxaa waaye maasha allah oo kugu soo baxaa. waa ujeedin saan leh u kala dhaafinayaa. midkaan ayaa hoos saas ugu dhagnaya, ma fahamteen? waa kaas kana had soo fujisaanaan dhahay. waa ka inta u leexiji le waayo maanta dhan. laakiin hubi mar walba midida inay hoos si fiican uga soo baxayso ama uga jartay. ilaan gabal yar hilib haddee kaa soo reebto ma kuu celinayso. asigana waa kanaa midkii labaad saan ayaa kusoo dhameeyey. labadan qaab waa isku wada qaab. haddana waxaan gali doonaa qaabka kale ee ugu dambeeyo insha allah hadduu ilaahay idmo. midkan waa steebkii koowaad, haddana steebka labaadaa galeynaa. kanne meeshaan ayaa soo saaranay. hadda waxaa soo qaadayaa qarihii. meeshaan marka hore iska tirtirayaa maadaama qaraha waa biyo soo ma. hadda waxaa soo qaatay waa saxan ayaan soo diyaarsaday. qarihii ayaan soo kor saaray. kadibna waxaan sameynayaa hadda qubka ayaan ka fiiqeynaa. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u arkoosiin. qubka dhan ayaa ka fiiqayaa. ujeediina umalena saasa u fiiqee. hilibka yar cadcadne markii gadaal oo kaaga soo haro ayaad haddana dib u fiiqi doonaa haddii ilaah idmo. sidaan lee kuwad. waxaa rajeynayaa sidoo kale inaad videoga bilaab ilaa iyo dhammaad aad fiirsatiin sida aad uga faa'iideysataan. ilaan qofka hadduu videoga iska bibixiyo ama iska mootiyo wixii dhan wax kama fahmayo soo ma. waa kay haddii hilibkii yaryaraay oo cadaanka ah dhana ka fiiqay. waa ujeediin hadda waxaan soo qaadanayaa waa tiish. saxanka ayaan qalajinayaa sida oo meesha dhan wixii markaas saarno si qurux badan oo ugu soo baxo ayaa rabaa. marka waa kaas markaa tiishooga soo qaado ayay la arkeysiin meesha oo aan tirtiro iyo sida aan u jarjareyno. aniga qaabkan le u wada jarjarooyaa. waa ujeediin insha allah haddaad jeceshihiin qaabo badan oo furuudka loo jarjarto ama loo habeeyo ila soo socodsiiya commentiga iigu soo qora. waan iisoo gudbinayaa. haddaa fikrada heesiine waa jeceshihiin bulshadiina inaad ugu faa'iideysiine ila soo wadaaga. anigana waa naanii matalayo waa idin lasoo sheer gareynayaa asxaabta. waa kana sidaan oo kusoo baxay. waa ujeediin si qurux badan oo kusoo baxay. waa aragteen dhexda ku dhuftay qarihii weynaa dhexda ku dhuftay. kadibna waan jarjaray jag asiiye. hadda saan oo kusoo safaaya. saxanka ayaan kusoo wada safaa. kadibna quruxda saxanka way la arki doontiin. korna hadhow ugu dambeynta waxaan saaray qurxis bis. waa gabal yar oo liin bambeelma ah sida oo xoogaa oo u qurxiyo le waaye, ma fahamteen? muhiim ma ahan, waa iska dayn kartiin. waa kana hadda dhexdana intii yar hartay ayaan ku sameeyey. maasha allah tabaaraka araxmaan. ugu dambeyntii saxankeenina sidaan ayuu kusoo baxay. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin labadan fikrad. waa ujeediin saan uu kusoo baxay midka saxanka. maasha allah iska cun le waa iska cun ma ku dhibaayo. kuwii kalena waa kuwaan xitaa martid ay ku imaanayso oo rabtid qof walba inaa asiga dhinaciisa dhigtid ama labadii qof hala xabo cunaan camal saan intaa u jarjartid saxan ku wada saftid ayaa saan ugu sameyn kartaa insha allah biidnillaahi kariim. waa inuu videoyo kale oo aad u qurux badan hadduu ilaahay noo ogolaado. haddaa video ka heshid like saar, haddaa ra'yi wadatidna comment igu dhaaf. assalaamu calaykum waraxmatullaahi